saxaabada qaar baa waxay soo jeediyeen nebiga in loo dhiso meel uu qaa'idnimada ka hogaamiyo, cariishi in loo dhiso uu ka hogaamiyo dagaalka. weliba sacad buu ahaayo wuxuu yidhi, rasuulkii allow adi cariishkaa galoo meesha wax ka maamul, annaga dagaalka aan galno, haddiina la jebiyo faraskaaga qaadee magaalada u noqee ummadda diintii iyo xaqa iyo taacada ilaahay bar, haddaan guul helnana waa sidii markaa la rabaye. rasuulka cariishkii baa loo sameeyey sala allahu calayhi wasalam. wakhti waxaa la marayaa aad iyo aad u dhib badan. muslimiintii diyaargarow fara badan ma haystaan walaalayaal. gaalo way soo bahaysatay oo hubkoodii saanadoodii bay wataan, way ku laba jibaarmayaan cadad ahaan iyo tiro ahaan marka la fiiriyo. xilliga meesha marka la marayo walaalayaal, hunaalika alwalaayatu lilaahi alxaq, wilaayada iyo maamulka dhabtaa ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala. nebi moxamed muxuu sameeyey? rasuulka sala allahu calayhi wasalam cariishkiisii ayuu galay. saaxiibkii abibakar ayaa la socdaa, gacmaha ayuu kor u taagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. rasuulku muxuu yidhi, allaahumma yaa rabbi, ilaahayow, khureesh waa tanaa, way soo baxeen, waxay u socdaan khuyalaa iyo kibir iyo isqaadqaad, diintaada inay la dagaalamaan bay doonayaan, nebigaagana ay dilaan. rabbiyow casaabadan iyo 300 waa inta maanta adduunka kugu caabuda. rabbiyo wallaahi haddii maanta la tirtiro oo maanta la baabi'iyo oo maanta kuwan meesha lagu halaago, yaa rabbi dambe adduunka lagugu dhihi maayo. ilaahayow aaway ballanqaadkii iyo nasrigii aad ii ballanqaaday. ilaahow isii ballanqaadkaagii, innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunyaa wa yowma yaquumu alashhaad. aad buu baryaha u badiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilaahay ayuu aad u baryey. maantoo kale ay ahayd 17kii ramadaan, yowma alfurqaan, yowma altaqa aljamcaan. yaa rabbi gargaarkaad ii ballanqaaday aaway. ilaahayow gargaarkaad ii ballanqaaday, ilaahayow isii. qorayshi waa tanaa, ilaahayow, khuyalo iyo kibir iyo isqaadqaad iyo faanjeertar bay ku soo baxeen. waxay beenisan yihiin nebigaaga, waxay diidan yihiin diintaada. ilaahayow gargaarkaaga. ilaa nebiga garbasaarta ama camaamadda u saarneed ka dhacday sala allahu calayhi wasalam, dhulkay uga dhacday. abuubakar baa soo qaadoo yidhi, xasbuka yaa rasuul allah, iska jooji rasuulka ilaahayow, alxaxta rabbaka, rabbiga waad ku dheerdheeraatay, ilaahayna wuu ku ajiibayaa subxaanahu wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu tawajuhayaa, ilaahay buu hortaagan yahay, ilaahay buu nasri iyo guul ka raadinayaa subxaanahu wa tacaala. meel kale uu guul ka raadinaya ama uu ka dalbaya ma jiro aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed ayaa markii dambe rasuulka intaa markuu beriyey, cifaabaa qabatay, in yar oo gamaanyo ah ama lulmo ah, hurdo yar baa rasuulka saa u qabatay sala allahu calayhi wasalam. intay xaaladiisu sidaa ahayd buu ilaahay isla markii ajiibay, wuxuuna la hadlay ilaahay malaa'igta. allahu akbar. malaa'igtii nasriga, malaa'igtii gargaarka ayuu la hadlay. id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum. abay malaa'igtii, labeyk yaa rabbi, anaa idinla jira, haye fardihiini iyo hubkiinii qaata dhaqsaha. allahu akbar. waa malaa'ig. aaway hubkiinii iyo saanadiinii iyo fardihiinii qaata. nebi moxamed baa tuugtamayee, nebi moxamedaa gacmihiisa kor u taagan. nebi moxamed baa maanta loo soo duulo la rabaa in la jebiya. aaway malaa'igtii, id yuuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu. dadka mu'miniinta la sugnaada, mu'miniinta garab istaaga, mu'miniinta la jooga. saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba. gaalada qalbigooda ana argagax ku ridaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. malaa'ig ilaahay gargaarkiisa subxaanahu wa tacaala. walaqad nasarakum allahu bibadrin. beder buu ilaahay idiin gargaaray. wa antum adilla faataquu llaha lacalakum tashkuruun. id taquulu lilmu'miniin, wakhti nebi moxamedow mu'miniinta aad ku dhahaysay, alla yakfiyakum an yumidakum rabbukum bi3,000. ma idinku filan tahay 3,000 oo malaa'iga inuu ilaahay idinku kordhiyo, oo min almalaa'ikati oo munziliin, cirka ka soo degaysa. balaa, maxay ugu filnaan weysay walaalayaal? balaa in tasbiruu. sabirka fiiriya walaalayaal, waxaa loo baahan yahay meel kasta. balaa in tasbiruu, haddaad sabirtaan, watattaquu, alla aad ka cabsataan, oo aad noqotaan ciidan aan gabdhaha kufsanin,
haddaad noqotaan ciidan aan wax billiqaysanin, haddaad noqotaan ciidan qabyaalistanimo aan ku soconin, haddaad noqotaan ciidan dhab ah, bala in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haada, isla waqtigaa gaalada ay idin yimaadaan, yumdidkum rabbukum, alla wuxuu idinku kordhinayaa bialfin min almalaa'ikati musawimiin, 1,000 malaa'igta ka midoo calaamadaysan, madaxa cimaamo ugu duwan bay qolo yidhaahdeen. say noqotaba malaa'ig musawimiin ah, malaa'igtaa imaanaysa miyaa guusha wada? malaa'igtaa maa dadka gargaar siin kartaa? waa laa, ilaa ilaahay yidhi wamaa jacalahu allahu ilaa bushraa, malaa'igtaa muslimiinta lagu kordhinayo ilaahay kama dhigin ilaa bishaaro maahane, lakum iyo walitadma'ina quluubukum bih, qalbigooda ku xasilaya. laakiin wama nasru ilaa min cindi illaah, gargaarka alla agtiisuu jira subxaana wa tacaala. yowma alfurqaan, yowma altaqa aljamcaan, waa 17 ramadaan. 17 ramadaan waa maanta aanu ku jirno, waa maalinta aan joogno, waa maalinta muslimiintana in badan ilaahay ku mahdiyaan loogu talagalay, waa maalinta ilaahay shirkigii gooskiisii gooyey, waa midka ilaahay raayadiisii taagay subxaana wa tacaala. 17 ramadaan, yowma alfurqaan, yowma altaqa aljamcaan. sidaa darteed ayuu ilaahay sidaa yeelay subxaana wa tacaala. malaa'igta markay hubabkoodii soo qaateen ma yaqaanaan bani aadamka meesha laga garaaco, sida loo dagaalamo, sida loo dilo. maxay dhaheen? ilaahay seen u garaacnaa, sidee loo dilaa bani aadamka? fadribuu fawqa alacnaaq, qooraha ka gooya buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. allahu akbar. fadribuu fawqa alacnaaq, qooraha korkooda ku dhufta. wadribuu minhum kula banaan, xubin kasta ku dhufto idinka hor timaada, garaaca buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. xaalku markuu meeshaa maraayey, nebigana hurdadii yaraa uu ku jiro, indhaha buu soo kala qaaday. indhaha markuu saa u soo kala qaaday, hadalkii ugu horeeyey ee afkiisa ka soo baxay nebi maxamed wuxuu ahaa, abshir yaa abaabakar. abibakar oo bishaaraysa, haadaa jibriil. allahu akbar. ataaka nasrullah, ilaahay nasrigiisii baa yimid. jibriil waa kanaa oo ka soo dhex baxaya buuraha dhexdooda, canaana farasihi saa u haystaa sala allahu calayhi wasalam. malakuljibriil asagoo hogaaminaya malaa'ig, asagoo dhas iyo habaas iyo boor kicinaya ayuu ka soo dhex baxay buuraha dhexdooda. muxuu u yimid? inuu u gargaaro muslimiinta. maxay u baxeen oo u yimaadeen? inay muslimiinta garab istaagaan. walaalayaal, malaa'igtii nasriga loogu talagalay ma dhidhinteen mase way baaba'een? ma ilaahay baa ballantii guub yeelay subxaanahu wa tacaala? jawaabtu waa maya. laakiin waxaa la la'yahay mu'min loo gargaaro. waxay maanta la'yihiin muslim ay u gargaaraan, ciidan ay u gargaaraan. ciidan sidii dadka u dagaalamayay la'yihiin. laakiin malaa'igtii waa mawjuudiin, hubkoodii way haystaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga uu ballan qaadayna ma gub yeelaya subxaanahu wa tacaala. laakiin markay laba qolo dagaalanto way yimaadaan, labadaa qolo tii loo gargaari lahaa ayay kala garan waayaan, markaasay iska laabtaan. waayo qoladan iyo qoladanba qolo loo gargaaraanan jirinba. waayo kuwaanna waxay sameeyaan bay kuwaa sameeyaan. daacadii ilaahay baa laga leexdaa, salaadihii ayaan la oogin, rabbi ayaan lagu xirnayn. qof kastaa sida uu doono uu dhaqmayaa. malaa'igta intay soo degtay cid u gargaartay ay weyso labadii qolo yay markaa iska laabataa, balse weligood way jiraan. jibriil baa yimid. abubakarow bishaaraysa, abubakarow. intaa wixii ka dambeeyay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka soo baxay cariishkiisii. cantooba ciid ah ayuu soo qaatay, markaasuu saas ugu firdhiyey. hashat ilwujuuh, wejigiina allah guba buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ciidda cantoobada ah ee nebiga firdhiyey, nin kastoo gaalada ka mid ah sanqaroorka ayay uga dhacday, wejiga iyo indhaha ayay ka gaartay, ilaa ilaahay uu yidhi falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa subxaana wa tacaala. adigu ma aadan din, laakiin ilaahay baa laayay subxaana wa tacaala. wamaa ramayta, ma aadan tuurin, ma firdhinin ciidda. id ramayta, asaa tuuray xaqiiqdii, walaakina allaha ramaa, ilaahay baa gaarsiiyey dhammaantood subxaana wa tacaala. sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur, ciidanku way jabi doonaan wayna kala carari doonaan buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur, way kala carari doonaan, way dibir jeedin doonaan. bal isaacatu mawcidahum waasaacatu adhaa wa amar, ballantana waa saacadda qiyaamo marka laysugu tago.
17 ramadaan yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan waa maanta aanu ku jirno walaalayaal. sidaa darteed baa muslimiinta waxay ku dhex jiraan meel aad iyo aad u khatiir ah, meel khatar ah. waxay ka hortegayaan oy qaabilayaan waan u jeednaa. sidaa darteed gaaladii way soo dhadhowaatay ayagana. gaaladii way soo dhadhowaanayaan, waxay u soo dhadhowaanayaan dadka muslimiinta ah. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam istikaaho iyo gargaar buu ilaahay weydiisanayaa. id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum. ilaah waa ka aqbalay. abijahal laftigiisa istiftaax buu weydiistay sida qur'aanku tilmaamay. ilaah muxuu yidhi subxaana wa tacaala in tastaftixuu. waayo abijahal wuxuu yidhi baa la yidhi maalintaa, ilaahayow annaga iyo moxamed qofkii raxim gooye ah oo raxim gooyey, qofkii waxaan la aqoonin la yimid, qofkii maanta xumaan iyo waxyaabo kaloo baatil ah la yimid, labadeena ilaahayow jebi, cidda kalena guulsii. saasuu asagana istiftaax u weydiistay. ilaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatx. haddaad istiftaax weydiisateen ood ilaahay in laydin kala furo aad u weydiisateen, fatxigii waa idin yimid. wain tantahuu fahuwa khayrun lakum. haddaad ka hartaan nebiga dagaalkiisa, haddaad ka hartaan waxaad ku wadaan, haddaad joojisaan cadaabada aad wadaan, haddaad joojisaan dagaalka iyo dhibka aad nebiga ku haysaan, fahuwa khayrun lakum, way idin khayr badan tahay. wain tacuuduu nacud. haddaad ku laabataan nebiga dhibkiisa iyo dagaalkiisana, jabkiinan anaguna ku laabanaynaa buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. wain tacuuduu nacud walan tugni cankum fi'atukum shay-an. waxba idin tari maysa badnaantiina, walow kahurad xataa haddaad badataan. waayo wa ana allaha maca almu'miniin. ilahay mu'miniintuu la jiraa subxaana wa tacaala. ilaahay mu'miniinta dhankooda ayuu xigaa, ilaahay mu'miniinta ayuu mici la yahay. saas ayuu ilaahay kula hadlay subxaanahu wa tacaala. inta marka xaalku uu maraayo, nebigana sala allahu calayhi wasalam uu xaaladaa sameeyey, saxaabadiisii habeenkii beri oo kale dagaalka uu dhacayo, saasaa loo taagan yahay. qiyaamuleylka, akhrinta qur'aanka, oohinta, baryaha alleh, waxa ka baxaya fiiriya. ciidan qaylaan naqaanaa soo maaha, ciidan qamri cunaa naqaanaa, qamri cabaan naqaanaa soo maaha, ciidan gabdho kufsadaan naqaanaa soo maaha. wallaahi habeenkii oo dhan miday ka soo dhacday, hurdo ma jirto, mid kasta waa taagan yahay, qur'aankaa la akhrinayaa, rabbaa loo khushuucayaa, indhahoodaa biyo ka daadanaya, nasri baa ilaahay la weydiisanaya subxaanahu wa tacaala. ilaa markii dambe ilaahay roob u keenay subxaanahu wa tacaala. roob ayaa loo soo qubay, roob ayaa u yimid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jaasiyey. ilaa ilaahay tilmaamay xaaladda noocaas ah, waynazila calaykum min asamaa. ilaah wuxuu cirka idinkaga soo dejiyey biyo buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. waayo hurdaa qabatay, id nughshiyakum annucaas. ayagoo saas u fadhiya waxooga gamaanyoodeen. hurdadaasi ilaah wuxuu ugu talagalay deganaasho, aaminatan minhu. wayunazila calaykum min asamaa'i maa'an. biyaa loo soo daadiyey liyutahirakum bihi, saad uga tahaaro qaadataan. wayudhiba cankum rijsa ashaytaan. wixii ilan waa la daalnaa, janaabadii iyo wixii ku dhacday iyo in looga qubaysto yuu ilaahay ugu talagalay. rijsa shaytaan inay isaga meertaan, iyo in qalbigooda ilaahay sugo, gomdahooda uu sugo. xaaladaasuu ilaahay ku abaalmariyay subxaana wa tacaala. saasuu u dhex wareegaya saxaabadiisa nebiga. qof kasta waa habaynayaa, ciidankiibuu u kala habaynayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. dhanka gaalada markaan aadno, maalintaa waxaa yimid ibliis, shaytaan lacanahu allah. wuxuu soo qaatay suuraddii suraaq ibni maalik, walaalkii abijahal buu gacanta saa uga qabsaday, gacantuu saa uga qabsaday. ilaa ilaahay yidhi waid zayana lahum ashaytaanu acmaalahum. camalkoodii xumaa baa shaytaan u qurxiyey. wa qaala laa gaaliba lakum alyawm min annaas. maanta cid idinka guulaysanaysaa ma jirta buu yidhi. wa inii jaarun lakum, anaa jaar idinla ah, war anaa idinla jira, gala dagaalka, gala dagaalka. saasuu ugu soo riixayaa. waa suraaq ibni maalik suuradiisuu soo qaatay. markaasuu dhaha wainii jaarun lakum. falamaa taraa'at ilfi'ataan. labadii ciidan markay sa isaga hor yimaadeen, nakasa calaa caqibayhi, cirbiisi buu u gadoomay. wa qaala inii barii'un minkum. war ani beri baan idinka ahay buu yidhi. inii barii'un minkum, waayo inii araa maa laa tarawna. waxaadan arkin baan anigu arkaya. muxuu arkay malaa'igtii soo maaha? wuu garanayaa ileen, wuu dhex joogi jiray, wuu yaqaanaa. waa gacanta abijaal intuu saa uga dhufsaday yuu yidhi inii araa maa laa tarawna inii akhaafu allah wallahu shadiid alciqaab. kamahali shaytaan id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha raba alcaalamiin.
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أبي جهل waa ka daba qeela yaa suraaqa aabay ballantaad noo qaaday aaba waxaagii ma aabay baa jirtaa suu u cararayo badda isku tuuray siday taariikhdu markaa tilmaantay. dhankii gaalada waaye. dhanka muslimiinta haddana waxay soo leexana haddana rasuulku mar allaala markay saa u soo dhadhowaadeen saxaabadiisa wuxuu ku yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard. allahu akbar. janna maanta intay taalaa janna waa tana ee u kaca quumuu ilaa janna war janna u istaaga cardigeeda iyo ballarkeeda samaawaadkii arlada ay la eg tahay. nin saxaabi ayaa yidhi yaa rasuula allah ma jannadaa ballarkeeda samaawaadkii arlada la eg? qaala nacam. qaala bakh buu yidhi ama bakhin maxaa kugu kalifay kelimada bakhin buu yidhi nebiga. waxa igu kaliftay buu yidhi tacajub, waxaan jeclaa inaan ka mid noqdo micigeeda. waad ka mid tahay buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka xaaladdu ay meesha marayso, abijahal iyo gaaladii ay ishabaynayaan, muslimiintii iyo mtaqaanaa iyo gooladii gaalada ahayd ay isku soo dhowaadeen, isla markii waxaa soo booday oo dhanka gaalada ka soo baxay 3 nin. waa cutbat ibnu rabiica iyo shayb ibnu rabiica oo walaalkii ah iyo waliid ibnu cutba nin lagu magacaabo.